وعيري حلقة صباح لقى إيجو إيا ساحل جده هذا إيا سبادة نيروبي إيا الصدية عيلان يا الله يو سبان بعد عي أو سمن الدون كيا سابلي دهامها رتجان ساري شري دوقيا إيده صملضي وكوا سرين بقاريال سرروه وحي إلى قائن سان يوروري هذا صبرت فيق إيا قدمه سامر كتشوغا يا سحن يقوم آمين رجعان صرعون كلهم بي waxaan ku baraarugna waxaan maqalno magaalada soo galay aan ku baraarugna anagu aan ka qatisanahay waxa soo galay wax la leeyahay guddiga abaaraha biyo heleen dadka deegaanka wal joog jiray waxba raashin helay waxaas dhigtoodu maqal wax noo qoonsan baa la arag wax noo qoonsan iyo nin noo hadla oo goobta noo taga midna ma hayno waxna nooma maqna waxna nalooma soo diro waxna nalooma soo dhiibo waxna nalooma qaybiyo beeshaas inaan nahay qabiilkaas la yiraahdo Tumaallada inaan nahan ka cabanaynay waxaan ka cabanaynay abaar baahsan waxaan ka cabanayay wixii layga maqlay iyo inta hadda aan dhihi doono magacay waa horka waxa dhacday abaar leerasina oo wax ay reeftay aan la arag dad iyo duuyo midna ummadaas baahan oo dhibaataysan wixii u gargaaraya waa mahsan yihiin baaleen waa mahsan yihiin waxay noo saameeyay dad iyo duuyo horta waa tagtaba ninkii wax lahaa waa tagtay dadkeena waa ku daba jira dadkeena intaas way ka cabaneen ma soo gaarin dadka guddiga abaaruhu ma soo gaarin dadkan badan waxa ka yimaadeen bari bay ka yimaadeen wax aqoonsan ba lama arko nin walba ninkiisu inoo shawr ayagu waxa u taagan lama arko rab yahay intaas way inta la dhawaaqay nimanka waxaan ku baraarugnay waxa aan maqalno magaalada soo galay aan ku baraarugnay anagu aan ka qatisanahay waxa soo galay wax la leeyahay guddiga abaaraha biyo heleen dadka deegaanka wal joog jiray waxba raashin helay waxaas dhigtoodu maqashay intaas way inta la istaagna maanta wax noo qoonsan baa la arag wax noo qoonsan iyo nin noo hadla oo goobta noo taga midna ma hayno intaas ku weyn ee dabcaan iyo midabta koor kuma aan waayin anagu horta wax dhiba kama qabno cadaadaan deganahay waa joognaa laakiin dhib kuma aan qabin sida wiilkaas uu u hadlay baa daacada muruqmaal baa la ahaa hatta qof kasta muruqmaal ahina markii wuxuu ka shaqaysan jiray uu waayo oo wixii uu ka shaqaysan jiray xaasaan ama abaaraan ama wax ku dhacaan isaguna waa la dumaya marka waxa la Soomaalida waxay ku mahmaadaan ninkii xoog lahaa xaaja u dhamaatay dadkii ordaayo dibadaha loo jiro daaqilka loo jiro meelaha loo jiro madaxda loo jiray dadkaas waxba dhadhanshay ama uu helay annagu waa sida wiilkaas idin sheegay waxna nooma maqna waxna nalooma soo diro waxna nalooma soo dhiibo waxna nalooma qaybiyo sida uu idin sheegay oo anigu aanan waxna ku darin waxna ku siyaadanin baa daacada sidaas ay idin ku sheegan wiilasha hadlay u yiraahdeen baahidan ku baraarugnay anigu wada baraarugay wuxuu yiri halka subax laga eego iyo saaxil gudaheeda iyo sabada Nairobi iyo sidii ceelaan ya Allah yow sabaan baa dhacay oo siman adduunkiya saablay dahaamaha ratigan saari jiray duuqya idihi sumladay waa kuwa surin baqaariyaal sararuhu waxay ila go'een saan u yururay hadan sabarad fiiq iyo gudmihii samir ka joogaya saxan iguma aamino raggan sarcun kala hayn beeshaas inaan nahay qabiilkaas la yiraahdo Tumaallada inaan nahan ka cabanaynay waxaan ka cabanaynay abaar baahsan waxaan ka cabanayay wixii layga maqlay iyo inta hadda aan dhihi doono waxaan rabaa marka dad badan ila soo xariiray oo muslimiina horta marka hore waxaan rabaa lambarkayga inaan meeshan ka sheego furuhu waa 5 eber 7 94 eber waxa ku qoran Liibaan Aadan Xasan waa ku celaa furuhu waa 5 eber 7 94 eber horna waa la igala soo xariiray hadeerna waa la igala soo xariiri doonaa dad muxsiliinaha isoo wacay waxa la yiri dadkii aad sheegtay oo boqolka qoysahay waxa la rabaa in wax loo qabto waxa la rabaa dadkii dadka mida in isku keentaa la rabaa loo baahan yahay dadka qorraxdan aan joognaa maantay oo nimid qorraxdana danaana keentay ulama waday oona wado danaana keentay dantana keentay marka hore waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu naga baxsho Ilaahay ka baryaynaa isaga awood leh Ilaahay madar qeyr qaba inuu nasiiyo oo na kala gaara horta Ilaahay aan ka baryaynaa qorraxan joognaa waa roob doon waa maalin jimca Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu madar qeyr qaba nasiiyo oo na kala gaara oo baahsan Ilaahay inuu nasiiyo taas aan Allah ka baryaynaa dadkii waa kan
meeshaana isugu keennay qorraxdaanay taagan yihiin halkaas bay ku sugan yihiin dad bari ka soo qaxay waa ku jiraan oo ka mudug deganaa waa ka yimaadeen dad awal bari dumaaye ka yimid oo camaare ka yimid waa ku jiraan intaanay ka mid yihiin dad waa imaa waayeen oo waa soo bixi waayeen oo dadku meel kuma soo wada kulmi karo inaysan meel wada deganeen oo hal qarya ku wada nooleyn awalan hor u sheeg intaana waa intii bari ka soo qaxday iyo intii awal deegaankan ku nooleed waay dad qabiilkan magaca Tumaal la yiraahdo degan oo la yiraahdo tuuladaas loo abaara ma jiraan dadkaanay ku dhex nool yihiin deegaankay ku dhex jiraan sida aan sheegay dumaaye dabagalo amaara dabku dhabe xasuweyne xagarre intaas wax ka degan yihiin dadka kale oo muxsiliinta oo dabadda joogo isoo wacana waxay dhaheen waxaan rabnaa dadkii annagu dad muslimiina oo wax la bax wax ka soo qaadayna waxaan u baahannahay dadkii aad sheegtay inaad waxa sheegtay isa meel wada joogin waxa sheegtay in hal qarya ku wada nooleyn waxa sheegtay in dhul kala jiraan meesha aad joogto hadda riyoonkan maanta ku sugan tahay inta joogta aan u baahannahay wixii maqanna ayagana waa gaarsiin doonaa sidaasaan haddii ilaahay idmo aan ka rabnaa la soo dhaweeyaynaa sidaasaan salaam